Jungle. Audio Jungle. kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaaday wararka 24 akhbaareedka ugu weyn ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya aan xiligan idin heynana waxaa kamid ah wararka ugu cuslaa oo lagu qaaday guriga ay deganayeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab Ilhaan Cumar oo ku baaqday in wax laga qabto ficilada ay wadaan ciidamada Kenya hogaanka Ahlus Sunna oo laba u kala qaybsamay sidoo kale waxaa daawan doontaan dawladda Kenya ayaa eedayn culus u jeedisay dawladda Soomaaliyana waxay dalka Eritrea ugu dirtay tababar cusub ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya ogow sababta Sheekh Mukhtaar Robo loogu wareejiyay xabsi guriga waxaad kaloo dhageysan doontaan shabaab oo degmo muhiim ah la wareegay iyo sidoo kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaki galiyay xilka qaadistii indha qarshe qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan soo dhawaada saaxiibayaal ha moogaan daawada inaad subscribe dhahdo channelkeena oo aad furto gambeelka adigoo waliba asxaabtaada la sii wadaagaya wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya waa tahay aynu ku bilownay wararkii ugu cuslaa ayaa lagu qaaday guriga ay deganayeen saraakiil sare oo ka tirsan Al-Shabaab mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa oo ay qaadaan ciidamada kumaandoosta Soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe ee koonfurta Soomaaliya dagaalka oo isugu jiray weerar toos ah duqeyn iyo toogasho ayaa waqti isku mid ah laga fuliyay degmooyinka Jilib Saako Bu'aale iyo Salagle oo ka wada tirsan gobolka Jubbada Dhexe ciidamada howlgalka qaaday oo la aaminsan yahay inay ku jireen saraakiil iyo ciidamo cadaan ah ayaa diyaarado uga soo baxay gobolada Gedo iyo Jubbada Hoose waxaana la sheegay inuu ahaa mid aad loo soo abaabulay saraakiisha howlgalkan hogaaminaya ayaa sheegay in Al-Shabaab halkaasi uu ka soo gaaray khasaare xoog leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona sidoo kale lagu burburiyay hanti iyo saldhigyo ay lahaayeen Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiishaasi sidoo kale ciidamada howlgalka fuliyay ayay saraakiishu waxa ay sheegeen inay yihiin ciidamo cusub oo dhawaan lagu soo tababaray dalka dibadiisa howlgalkan ayaa laga fuliyay 4 xarumood oo Al-Shabaab xarumahooda ugu waaweyn kamid ahaa kuwaas oo intooda badan laga soo abaabuli jiray weerarada xoogga badan ee Al-Shabaab ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya magaalooyinka Salagle iyo Saako ayaa la sheegay in ciidamada kumaandoosta Soomaaliya ay dagaal foolka foola kula galeen Al-Shabaab iyadoona xilliga dagaalkaasi uu dhacay wax yar ka hor ay duqeymaha halkaasi ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka ciidanka kumaandoosta Soomaaliya ayaa la sheegay inay qabsadeen goobta uu dagaalku ka dhacay ciidanka ayaa muddo kooban la wareegay xaafad ka mid ah degmada Saako waxayna ka fuliyeen toogasho toos ah sida ay wararku sheegayaan sidoo kale Salagle ayaa la sheegay in ciidamada ay la wareegeen wado ka soo gasha dhanka gobolka Gedo waxaana ay gacanta ku hayeen halkaasi ciidamada muddo 20 daqiiqo ah degmada Bu'aale ayaa la sheegay in la duqeeyay guriga gudoomiyaha gobolka Jubbooyinka ee Al-Shabaab wadaadka lagu magacaabo Abu Cabdalla inkasta oo la sheegay in xilliga duqeyntaasi uu dhacayay uu guriga ka maqnaa dhanka kale degmada Jilib ayaa la sheegay in la duqeeyay kolonyo ciidan oo halkaasi marayay oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ku sii jeeday dhanka gobolka Shabeellaha Hoose waxaana la sheegay in halkaasi lagu duqeeyay tobaneeyo gaari oo ay wateen Al-Shabaab si rasmi ah looma oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi mana jiro wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab inta badan waxaa maqan adeega isgaarsiinta ee degmooyinkii la weeraray sida ay inoo sheegeen saraakiil ku sugan gobolka Gedo iyo magaalada Kismaayo mana jiro wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan weerarkan ay fuliyeen ciidamada cadaanka ah iyo kumaandoosta Soomaaliya waa hagaag daawadayaal wali waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 moogaan daawadayna subscribe dhahdo channelkeena oo aad furto gambalelka isla markaana aad asxaabtaada la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya markaana haddii aan eegno Ilhaan Cumar ayaa ku baaqday in wax laga qabto ficilada ay wadaan ciidamada Kenya Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka hadashay burburinta ay ciidamada Kenya u geysteen xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee ay ku leedahay koonfurta Soomaaliya Ilhaan oo qoraal kooban soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM looga baahan yahay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ay ciidamada Kenya ka geystaan koonfurta Soomaaliya sidoo kale waxay intaasi ku dartay in shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo shirkadaha kale ee ku yaala dalka ay si weyn uga qayb qaateen horumarka gaar ahaan dhanka tiknoolajiyadda hadalkan Ilhaan Cumar ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan ciidamada Kenya ay qaraxyo ku burburiyeen xarun ay shirkadda isgaarsiinta Hormuud ku lahayd gobolka Gedo talaabadaas ayaa waxaa cambaareeyay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliya waa hagaag daawadayaal wali waxaad la socotaan shabakada wararka 24 ha moogaan daawada inaad subscribe dhahdo channelkeena oo aad furto gambalelka isla markaana aad asxaabtaada la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya markaana Ahlus Sunna hogaanka Ahlus Sunna ayaa laba u kala qaybsamay
ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa inoo xaqiijiyay in khilaaf uu soo kala dhex galay hoggaanka ururka ahlu sunna ee gacanta ku haya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. khilaafka ayaa yimid kadib markii xubno ka mid ah ahlu sunna ay ku sheegeen inay ka baxeen heshiiskii ay la gaareen dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya kadib markii ay sida ay tilmaameen dowladdu fuli weysay waxyaabihii lagu heshiiyey. qaar kale oo ka mid ah hoggaanka ahlu sunna ayaa sheegay in heshiisku uu yahay sidiisii oo aan weli laga bixin, isla markaana ay ka dhursugayaan dowladda oo ay sheegeen in laga yaabo inay wax uun ka fuliso heshiisyadii ay la galeen. hoggaanka ciidanka ahlu sunna ayaa sidoo kale ka soo horjeestay tillaabooyin uu qaaday Macalin Maxamuud iyo wasiirka qorsheynta Galmudug, iyagoo u arka tillaabooyinkaasi inay yihiin kuwo ka sii daraya xaaladda ahlu sunna. kulan ay yeesheen hoggaanka ahlu sunna oo ay ka mid yihiin Macalin Maxamuud, Sheekh Shaakir iyo Sheekh Ashcari ayaa soo dhammaaday iyada oo aan wax natiijo uusan ka soo bixin. wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in la filayo in kulamo kale ay yeeshaan hoggaanka sare ee ahlu sunna, kuwaas oo doonaya inay go'aan ka qaataan waxyaabaha laga yeelayo sida haatan ay dowladdu wax wado. waa hagaag daawadayaal, weli waxaad la socotaan janalkeena wararka 24 hamuugan daawada inaad subscribe dhahdo oo aad furto gambareelka, isla markaana aad asxaabtaada la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markaana haddii aan eegno, dowladda Kenya ayaa eedayn culus u jeedisay dowladda Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kenya ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay ka dambeyso go'aankii dowladda Djibouti ay uga hortimid codayntii midowga Afrika ee kursiga qaramada midoobay. waxaa kale oo ay sheegtay in go'aanka Djibouti uu meel ka dhac ku yahay dhaqanka guud ee qaaraddan Afrika sida ay sheegtay dowladda Kenya. sidoo kale waxa ay tilmaamtay Kenya in dalalkaas dhaqyada ku leh dalkaasi Djibouti ay gadaal ka riixayaan in Djibouti ay u tartanto xubinimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dhowaan ayay ahayd markii danjiraha Djibouti ee qaramada midoobay Maxamed Saciid Ducaale uu sheegay in aysan ku qancin doonin go'aanka ka soo baxay midowga Afrika kaas oo ay ugu codeeyeen dowladda Kenya. danjiraha ayaa tilmaamay in dowladda Djibouti ay u tartami doonto kursigaasi marka la gaaro bisha Juun ee sanadda soo socota. dowladda Kenya ayaa dadaal badan ku bixisay helista kursigan si ay maxkamadda ICJ uga baajiso doodeeda ay ku doonayso biyaha Soomaaliya. waa hagaag daawadayaal, weli waxaad la socotaan janalkeena wararka 24 hamuugan daawada inaad subscribe dhahdo aad furto gambareelka, welibana asxaabtaada la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markaana haddii aan eegno, dowladda Soomaaliya ayaa dalka Eritrea tababar ugu dirtay ciidamo cusub. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tiradii ugu horeysay oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah tababar ugu dirtay dalka Eritrea oo dhowaan heshiis saaxiibtinimo la gaaray dowladda Soomaaliya. dhalinyaradan tababarka loo qaaday oo gaaraya ku dhawaad 100 qof ayaa la sheegay in xulistooda ay socotay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dhalinyaradaasi. ciidankan tababarka loo qaaday oo tiradooda lagu sheegay 100 qof ayaa la sheegay in la soo siin doono tababar casri ah oo ku saabsan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sida xogaha loo helo. dowladda Eritrea ayaa dhowaan laga qaaday cunaqabatayntii saarnayd kadib markii ay la heshiisay dowladda Itoobiya, sidoo kalena ay heshiis la gaartay dowladda Soomaaliya. dalka Eritrea waxaa horey loogu eedeyn jiray inuu la shaqeeyo islaamiyiinta ka dagaalanta Soomaaliya, waxaana uu horey u soo dhaweeyay kooxihii maxkamadaha islaamiga ay ka dagaalami jiray Soomaaliya. hase yeeshee dowladda Eritrea ayaa inta badan iska fogeyn jirtay eedahaasi. markaana haddii aan eegno, maxay tahay sababta ka dambeysa in Mukhtaar Robow loo wareejiyo xabsi guri? dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka wareejisay Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abumansuur xabsigii uu ku jiray muddo 9 bilood ah, waxaana la geeyay xabsi guri kale oo ku yaala madaxtooyada Soomaaliya. Abumansuur ayaa la dejiyay guri dhowaan lagu sameeyay dayactir kaasi oo ku yaala gudaha madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan agagaarka hotelka Gobsoor ee Villa Soomaaliya, waxaana aad loo adkeeyay ammaanka halkaasi. wararka aynu helayno ayaa tilmaamaya in halkii uu ku xirnaa 9 bilood ee la soo dhaafay Abumansuur laga soo wareejiyay sabab la xiriirta dayactir lagu sameynayo qolalka loo yaqaano VIP-da ee taliska Nisa, iyadoo la sheegay in gurigan cusub uu joogi doono muddo u dhaxaysa 30 ilaa 60 cisho. Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abumansuur ayaa waxaa soo qabtay ciidamada Itoobiya 13 bishii December ee sanadii hore ee 2018 kadib markii uu isu soo sharaxay xilka madaxweynaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo ay taasi ay diiday dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay inuu ka baxay heshiis ay la gashay dowladdu. dadaalo badan oo la geliyay in lagu sii daayo wadaadkan ayaa ilaa iyo hadda suuro gelin, waxaana diiday madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waa hagaag daawadayaal, weli waxaad la socotaan janalkeena wararka 24 hamuugan daawada inaad subscribe dhahdo aad furto gambareelka, isla markaana aad asxaabtaada la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markaana haddii aan eegno, shabaab ayaa muddo kooban la wareegay degmo muhiim ah. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar xooggan oo Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
weerarkan ayaa waxaa fuliyey dagaalyahanno ka tirsan kooxda al-shabaab oo muddooyinkii dambe isku aruursanayay duleedka magaalada balcad sida ay inoo sheegeen ilo deegaanka ah. ragga weerarka soo qaaday iyo ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa halkaasi waxa uu ku dhex maray dagaal xooggan, waxaana al-shabaab u suura gashay markii dambe inay la wareegaan degmada balcad. mas-uuliyiinta maamulka degmadaasi ayaa la sheegay inay isaga baxeen halkaasi isla markaana ay tageen xarunta warshadii hore ee dharka oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. dhanka kale wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in hadda xaaladdu ay degan tahay isla markaana ay al-shabaab isaga baxeen magaalada balcad. siyaasiga mucaaradka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shaki geliyay xilka qaadistii lagu sameeyay Generaal Indha Qarshe. siyaasiga mucaaradka ah ahna gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shaki weyn geliyay xilka qaadistii dhawaan lagu sameeyay taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shaaciyay in muddooyinkii dambe ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay guulo ballaaran ka gaareen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab isla markaana ay shaki keenayso sababta xilka qaadista loogu sameeyay taliyihii ciidamada xoogga Soomaaliyeed Generaal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe. sidoo kale waxa uu tilmaamay in madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya aysan dhab ka ahayn dagaalka ay kula jiraan al-shabaab, taasina ay caddeyn u tahay in 2 sano iyo bar wax ka yar 5 taliye la bedelay. tan iyo intii uu joogay xafiiska madaxweyne Farmaajo oo ku dhow 2 sano iyo bar ayaa waxaa la bedelay ilaa 14 taliye dhammaan talisada kala duwan ee ciidamada sida ciidamada xoogga, nabad sugidda, booliiska iyo asluubta Soomaaliyeed. guud ahaan waxaynu intaa kusoo afmeeraynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya. ha moogaan daawada inaad subscribe dhahdo channelkeena oo aad furato gambalelka isla markaana aad asxaabtaada la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya.